munaasabadani oo ka qabsoontay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid ay ku qalin jebinayeen arday ay tiradoodu dhan tahay 165 arday oo dhammaantood bartay culumta kala duwan ee caafimaadka waxaanay ka qalin jebiyeen jaamacadda Adna Aadan University oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa. munaasabadani oo loo diyaariyay hab meeqaamkeedu sareeyo ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo waalidiin kale oo tiro badan. bilowgii xafladda ardayda ka qalin jebisay jaamacadda oo safsaf u socda ayaa lagu soo dhaweeyay mashxarad iyo dabaaldeg lagula qaybsanayo dareenkooda ku aadan culumtani ay dhameysteen. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Adna Aadan University Maxamed Mixille Boqorre waxaanu ka warramay ardayda qalin jebisay iyo jaamacadda Adna Aadan University. jaamacaddu waxa weeyaan waxa la aasaasay horta waa jaamacad Medicine waa Medical University Medicine weeyaan waxa la aasaasay 2000 la aasaasay waxa aasaastay Dr. Adna Aadan oo imikana Chancellorka jaamacadda. jaamacadda Adna Aadan waxay ka kooban tahay 8 kulliyadood: kulliyadda medicine-ka, kulliyadda midwifery-ga, kulliyadda nursing-ka, kulliyadda public health-ga iyo kulliyadda laboratory-ga, kulliyadda dentistry-ga iyo pharmacy-ga iyo nutrition. intaas ka kooban tayada jaamacaddan ilaalinaa sanad walba inta dhacda waan xeebnaa oo ma halka kama gudbaan ilaahay halka soo gaarayaan kama gudbaan. waxa weeyaan marka tayada jaamacadda waan ilaalinaa sidaa darteed ardaydan hor fadhiday waxay ku hubaysan tahay aqoon wasaaradda caafimaadka ee Somaliland, wasiirka waxbarashada iyo sayniska, la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha bulshada, waalidiin iyo qaar ka mid ah ardayda qalin jebisay ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay. anagood caafimaadka marka noo keeno talaal dad baan iska qaybin jirnay shacab oo oran jirnay talaal baa la yiraahdaa qaado buurta ka baxo caruurta 3 dhibcood ku soo shuba. laakiin waxaan la soo gaaray ardadii ka soo baxday jaamacadda Adna Aadan oo naga soo gaaray dhibaatadii caafimaad naga haysatay markaa aqoon la'aanta markaa naga haysatay halka caafimaadka waxa weeyaan waxaynu oran karnaa imika ayuun bayna aqoontii furaheedii qabsanay. waxaan idinku boorinayaa nafteedii iyo nafihiinaba inaynu halkaa ka sii wadno, marna aynaan qalinkiyo buugga iska dhigin, aqoonteena marba mar ka dambaysayna halkaa ka sii kororsano. waxa caafimaadku waa wax muhiim ah, waa waqtiga loogu jilicsan yahay ee qofka idin yimaada uu jilicsan yahay. sidii inantu sheegtay in naxariis ku jirto oo la soo dhaweeyo oo wixii loo qaban karo loo qabto oo waqtiga la ilaaliyo ayaa ku jirta. waxaa la doonayaa inaad noqotaan dad caafimaadka dalka wax ka bedela, miyi iyo magaalaba xil iyo waajibaad baa idinka saaran. muhiimadiinugu yaani noqon saad lacag u heli lahaydeen, laakiin ha noqoto saad daryeelka bulshadiina ugu guulaysan lahaydeen, waxna ugu qaban lahaydeen. ardayda maanta soo baxaysa oo isugu jirta heerar kala duwan waxay qayb muhiim ka noqonayaan rukunka asaasiga ah ee adeega caafimaadka u ah salka, oo ah in la helo qof xirfadle caafimaad oo ka howlgala goobaha caafimaadka kala duwan, ama ha noqoto goob caafimaad, ama ha noqoto xarunta dhalaanka iyo hooyada, ama ha noqdaan cisbitaalladeeda. taana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. wasiir caafimaad ahaana waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhammaan ardayda maanta qalin jebinaysa. qofka caafimaad ka shaqeeya haddii aanu waxbarashadiisa sii wadin oo aanu la socon maalin walba dawada soo baxda waxay tahay iyo waxay tarayso, oonu la soconin technology-ga maalin walba ku soo kordhaya caafimaadka oo halkan jaamacadda kaga baxo oo ku haro wuxuu ma taraya qofkaasi. hambal iyo macallimiintii wax bartay, hambal iyo jaamacadda Adna Aadan Ismaaciil iyo hambal iyo Somaliland ba asal. Daahir Riyaale Kaahin, madaxweynihii saddexaad ee Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ardayda u hambaliyay kulana dardaarmay inay culumta sii laabaan. Dr. Adna waxay ugu dhashay wiil yar oo lagu qalay dhakhtarkeega oo maanta 16 jir ah. mahad gaar ah baan u hayaa Adna iyo jaamacaddeedana u hambalyeynaya. waxaan u hambalyeeynayaa dhalinyarada
ka qalin jabisay maanta jaamacadda waxaan idinku boorinayaa waxaad barateen sidii gabadhii halkan idiin hadlaysay ay sheegtay inaad dadka xanuunsanaya daweynaysaan aad u gudbisaan shaqadaad haysaanna waa shaqada ugu adag ee bini aadan qabto mustafa xasan daahir gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Aadna Aadan University ayaa waxa uu gabagabadii munaasabadda ku dhawaaqay ardayda hormuudka u ah jaamacadda sanadkani iyadoona isla halkaasi lagu guddoonsiiyay abaalmarino qaaliya sidoo kale waxaa la maamuusay oo abaalmarino la guddoonsiiyey madaxdii iyo macallimiintii goobta ku sugnaa arday badan baa soo dadaalay muddo dheer rafaad iyo imtixaan iyo assignment ku soo jiray hawl sahlan may ahayn 5 arday ayaa markaa fakaltiyada maanta qalin jabinaya u ah hormood iyaguna munaasabadda ayaa markii ay soo dhamaatay waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda iyo ardaydani qalin jabisay aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay maadaama kooraskii aan muddada badan wadnay oo noo dhamaaday oo noo gabagaboobay jaamacadda Aadna Aadan University oo maanta qalin jabinteedii halkan ku sameysay runtii hambalyo ayaan leeyahay dhammaan ardayda qalin jabisay waxa runtii farxad weyn iyo inaan halkan aan ku tababarnay arday 16 tiradoodu tahay oo iyagoo markii hore qalin jabiyay oo shaybaarka runtii ka qalin jabiyay haddana qaatay tababar gaar ah oo khuseeya sida loo beero ee dheecaanada iyo dhammaan waxa la wixii qofka jirkiisa ka soo baxa iyadoo la beerayo jeermiska